cabdillaahi ibnu camr ibnu caas cibaado say ku hayeen gabadh baa loo guuriyey waa nin dhallinyaro ah maanta waxaa laga yaabaa dhallinyarada wakhtigan joogta naaga raadis iyo suuq wareeg inay ku dawaqeen oo kuwii naaga hore u waayey kombyuutarka baadhbaadh iyo qurunka daawo inuu ku dawaqay laakiin aabbihii baa intuu soo kaxeeyey kan gabadhu meheriyey dabeetana gabadha xaggeediiba iskuma buu hawline habeenkiina salaad buu u taagan yihi maalintiina wuu sooman yihi odaygiiba maalintii dambe soo maray camar ibnu caas baa gabadhii soo maro wuxuu yidhi naabal ka warran ninkii waxay tidhi wallahi waa nin fiican laakiin gurigaba saanu imid dee taftayda ma taaban maradaydaba gacantiisuba gaadhin hadduu qiyaas nin dhallinyaro oo loo guuriyey waa inan qurux badan oo qoreeshii guriga u joogto oo xalaal u ah oo aanay hunguri badanba ku haynin oo maxaa hunguri ku haya jannada iyo xuuralcaynta iyo kuwa jooga hunguri ku haya oo muxuu wadaa maalin oo dhanna waa soomaya habeen oo dhanna salaad buu u taagan yahay oo dabeetana aabbihii intuu xanaaqay oo yidhi inan reer ka dhalataan intaan kugu daray baad adna cidle ii taagantay inankeen waar buu yidhi waa soo qabtoo nebigu ula tegey ilaahay rasuulkiisiiyo ninka kan gabadh reer hebelaan ku daraysana halkaasuu tafteeda ma taabanin war bal warran baa la yidhi wuxuu sheegay de inuu maalin oo dhanna sooman yahay habeen oo dhanna taagan yihi war qur-aanka imisaad ku dhammaysaa buu nebigu yidhi dee habeen kastaba waa dhammeeyaa buu yidhi ninkani qur-aankaba habeenkii buu ka baxaa salaad isagoo u taagan buu ku dhammaynaya dabeetana riwaayadka qaarkood wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam war 40 ku akhri 40kii cashaba mar dhammee buu riwaayadka qaar sheegaya markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo ka xoogan baan awooda ee dacni astamtic bishabaabi wa quwatii idaa'an xooggayga iyo dhallinyaronimada ku raaxaystee buu leeyahy raaxada wuxuu u arkaa ilaahay cibaadadiisa markaa wuxuu leeyahy ilaahay rasuulkiisiiyo wii fasax wakhtiganaan xoogganay baan rabaa inaan ka warkeene markaasaa la yidhi 30kii casho mar dhammee markaasuu dib u celiyey markaasaa la yidhi 22kii casho markaasuu dib suu nebiga hadalka isugu celinayana uu lahaa ilaahay rasuulkiisiiyo widaa dhallinyaronimadii iyo xooggaan ka faa'iideeye ayuu nebigu markii dambe wuxuu ku yidhi 7 ku akhri kaf badan baan awoodaa wuxuu nebigu ku yidhi 3 wax ka yar qofkii ku akhriya qur-aankaba ma fahmo